soo dhawaada akhyaarta muxuu u taagan yahay xarafka I ee ku jira magaca taleefanka iPhone-ka magaca taleefanka iPhone waxa uu ka kooban yahay ereyga phone oo taleefanka ah xagga horena lagaga daray xarafka I inkastoo uu magacu dhadhan kala yeeshay marka uu noqday iPhone sidaas awgeed ayaana dad badani isweydiinin ujeedada shirkadda Apple ee taleefankan soo saartaa ay ka leedahay xarafka I markii ugu horeysay ee shirkadda Apple isticmaashay xarafka I waxa ay ahayd markii ay soo saartay kombiyuutarkeedii iMac ee soo baxay sanadka markuu ahaa 1998 xilligaas ay shirkaddu xarafkan waxa ay ka soo qaadatay weedha internet maadaama uu kombiyuutarkeedii ahaa kii ugu horeeyay wax soo saarkeeda ee internet lagu xiriirin karay xarafka I waxa uu u taagan yahay internetka taleefanka magaca looga dhigayna waxa loola jeedaa inuu yahay taleefan ku xiriirsamaya internetka taasoo waqtigaas ku cusbeed dunida taleefanada gacanta si kastaba ha ahaatee Steve Jobs oo ahaa aasaasihii iyo agaasimihii hore ee shirkadda Apple ayaa mar sheegay in xarafka I uu u taagan yahay erayo badan oo internetku ka mid yahay Paul Bischoff oo ka tirsan shabakadda Comparative oo ka faaloota arrimaha tiknoolajiyadda ayaa sheegay in xarafka ujeedadiisii koowaad ee shirkaddu uu isticmaashay uu ahaa internetka in lagu isticmaali karo taasoo markaas ahayd wixii ugu weynaa ay suuqgeynta ee loogu sameynayay maadaama xiisaha isticmaalka internetku oo xilligaas aad u soo shaacbaxay waxa uu sheegay in markaas koowaad ee internetka looga jeeday wixii ka dambeeyay ee shirkadda xarafkan ka dhigatay ujeedo badan oo hadba sida danteeda suuqgeynta u aragto u fasirto isaga oo arrintaas cadeynaya waxa uu sheegay in xitaa qaar ka mid ah qalabyada shirkadda Apple soo saarto ee magacooda I la raaciyay aan internetka ku shaqeyn waxaana ka mid ah iPod Paul Bischoff waxa uu sheegay in sababahaas awgeed aan la oran karin xarafka I waxa uu u taagan yahay internet kaliya waana calaamad ganacsi oo ay shirkaddu sumad uga dhigato magaceeda iyo wax soo saarkeeda waxa ayna noqotay calaamad gaar ah oo haddii la arko lagu xasuusto shirkadda Apple iyo wax soo saarkeeda shirkadda Apple waxa ay ka mid tahay shirkadaha ugu waaweyn caalamka qaasatan waddanka Mareykanka waxayna ku kaalinta koowaad kaga jirtaa shirkadaha dakhligooda uu dhaafay 1 trilyan marka ay shaaca ka qaadaysay taleefankeeda iPhone-ka 2007 waxa la socday xarafka I taasoo macnaheedu ahaa ama suuqgeyntiisa ugu ballaaran ay ahayd in taleefankan gacanta uu internetku uu ku shaqeyn karo laakiin shirkadda Apple waxay gadaashii soo saartay agab fara badan oo xarafka I la socdo waxaana loo adeegsan karaa macno kala duwan oo inta badan website-yada ay soo qaataan waxaana ka mid ah Inspire iyo Inform ugu dambeyntii xarafka I waxa uu noqday brand name oo lagu garto shirkadda Apple alaabaheeda dhan